waa mid ka mid ah shirqooladii ugu khatarta badnaa ee uu ka badbaaday madaxweynaha dalka Burkina Faso, Kabtan Ibrahim Traoré, kaas oo ahaa mid loo adeegsaday qof aan ka dheerayn shaqaalaha madaxtooyada. Waxa ay ahayd xilli habeen ah, wax walbana waxa ay u muuqdeen kuwo caadi ah. Ilaaladu waxa ay taagnaayeen bannaanka hore ee madaxtooyada, halka qaarna ay ku diyaarsanaayeen heeganna ay ugu jireen gudaha madaxtooyada. Nalalku waa ay shidnaayeen, waxaana si caadi ah u socotay shaqada madaxtooyada. Laakiin qorshaha ay maleegayaan qaar ka mid ah shaqaalaha madaxtooyada cidna ma aysan malayn karin. Qofka fulin lahaa qorshaha dilka mar hore ayay gudaha soo gashay, waxa ayna timid saacad ka hor iyada oo adeegsanaysa aqoonsigeeda kalkaaliso caafimaad. Waxa ay sheegtay inay u timid inay hubiso shaqaale ka soo kabanaya xanuun yar, maadaama ay haysay diiwaankiisa. Maadaama ay ka tirsaneyd xafiiska madaxtooyada, kama aysan shakin ilaaladu oo waxa ay u haysteen inay u timiday shaqooyinkeeda aan joogtada ahayn ee asbuuciiba mar ay imaan jirtay. Waxa ayna u haysteen mid iska caadi ah imaanshiyaheeda, wax shaki ahna ma uusan jirin. Ilaalada ayaana u gacan haadisay si ay gudaha u gasho oo ay u gudubto. Cidna waxba iskama aysan weydiin waxa ay wadatay. Boorsadeeda cidna ma aysan baarin, maadaama ay ahayd shaqsi laga yaqaano oo ka tirsan xarunta madaxtooyada. Balse giyaarta oo ahayd kalkaalisadii loo adeegsaday inay ifka ka qariso madaxweyne Kabtan Ibrahim Traoré, waxa ay u diyaarsanayd oo ay wadatay hubkii ay u adeegsan lahayd dilka. Waxa ayna wadatay boorsada gacanta. Boorsadaas dhexdeeda waxaa ku jiray baskoolad yar oo lagu xiray qalabka dhawaqa yareeya si aysan xabadda ilaaladu aysan u maqal. Waxa ay soo martay afaafka hore ee xafiisyada qasriga madaxtooyada, waxa ayna soo dhex lugaysay marinada VIP-da ah ee madaxtooyada. Si fiican ayay u garanaysay halka uu ku yaallo xafiiska madaxweynaha iyo guriga gaarka u ah ee uu ka degan yahay qasriga madaxtooyada. Waxay ogeyd kaamiradaha shaqaynaya iyo kuwa aan shaqaynayn ee ku xiran halkaas, maadaama si fiican looga soo shaqeeyay qorshaha dilka oo ay qayb ka ahaayeen sirdoonno caalami ah. Waxayna ahayd arrin aad looga soo fekeray, aadna looga shaqeeyay oo loo soo tababaray. Si aamusnaan ah ayayna u fuushay dabaqa labaad, qolka 2D oo ahaa xafiiska gaarka ah ee madaxweynaha, waxaana halkaa ahaa bartilmaameedkeeda. Marka ay saacadu ahayd 10:13 oo habeennimo, waxaa lagu ballamay inay xabadaha riddo, isla markaana ay ka baxdo albaabka dambe. Qof kale oo gudaha ku diyaarsan ayaana loogu talagalay inuu furo albaabka, qofkaas oo ahaa mid aad ugu dhow madaxweynaha. Laakiin ma ahayn iyada oo keliya waxa ka shaqaynayay qorshahan, ee waxa ku jiray dad kale oo ka shaqaynayay, kuwaasi oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha. Qolka koontaroolka ee xarunta madaxtooyada, shaqaale ka mid ah kuwa IT-ga ah ee qaabilsan ilaalada iyo hubinta kaamirooyinka oo lagu magacaabo Xamidu, ayaa isha ku hayay shaashadaha kaamirooyinka amniga. Markii hore ma uusan qabin wax shaki ah, waxa uuna watay shaqooyinka gaarka ah ee loo egmaday. Balse daqiiqado kadib, indhihiisu waxa ay qabteen hal kaamirad oo ka mid ah kuwa ilaalada oo gebi ahaanba dintay. Waxa uuna galay inuu hubiyo fiilooyinka isla markaana uu baaro cilada ku imaan karta kaamirada, balse ma uusan helin wax cilad ah oo ku timid kaamirada. Waxa uu wacay madaxa kaamirooyinka ee xarunta madaxtooyada si uu ula wadaago cilada qabsan karta kaamirada. Giyaarta qorshaheeda ayayna horay u sii wadatay, aaggaas ayayna martay daqiiqado ka hor, maadaama ay dansaneyd kaamiradu. Laakiin ma jirin wax muuqaal ah oo muujinaya soo gelitaankeeda iyo markii ay gudaha u gashay dabaqa labaad. Xamidu ayaa isku dayay inuu baaro diiwaanka dadka soo maray marinka xafiiska madaxweynaha loo maro, balse ma uusan helin wax dhaqdhaqaaq ah. Waxa uuna dareemay shaki badan. Isla daqiiqadaasina dabaqa sare ayay dilaagu u gudubtay. Madaxweyne Ibrahim Traoré waxa uu ku jiray qolkiisa gaarka ah, waxa uuna markaasi ka baxay shir aaladda fogaan aragga ah oo uu ku jiray. Waxaana madaxweynaha qolkiisa ku weheliyay qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo xoghayihiisa gaarka ah. Waxa uuna kala hadlayay kulan uu kula balansanaa qaar ka mid ah generaalada ciidanka, kaasi oo maalinka beri ah la rabay inuu qabsoomo. Waxa uuna dareemayay daal badan maadaama uu qabtay shaqo badan. Halka uu madaxweynuhu fadhiyay, waxaa hor yaalay miis yar oo ay dul saarnaayeen 2 koob oo kafee ah. Waxaana madaxweynaha u furnaa gal ay ku jireen warbixino sir ah oo ku saabsanaa weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhaca waqooyiga dalka. Ma uusan ogeyn waxa ka soconaya qasriga madaxtooyada,
ma uusan ogeyn in mid ka mid ah ilaalada madaxweynaha loo adeegsaday inuu ka takhaluso. Dhanka kale, Giyaarta waxa ay maraysay sallaanka sare, tillaabooyinkeedu waxa ay ahaayeen kuwo qorshaysan isla markaana xasilan. Jeebkeeda waxa ay kala soo baxday qalab yar oo madow. Hal badhan ayaa ku yaala qalabka. Marka la taabto waxa uu dirayaa signal muujinaya inta uu ku jiro bartilmaameedka. Telefoonkeeda waxa ugu soo dhacayay fariimo kala duwan, balse cidina ma aysan maqli karin. Markii ay furtay waxa ku qornaa, albaabku waxa uu furmayaa 2 daqiiqo gudahood, diyaar garow. Waxaa fariintaasi soo diray mid ka mid ah kaaliyayaasha muddada dheer ee madaxweynaha. Giyaarta weligeed ma aysan arkin isaga, laakiin shabakadda ka dambeysa dilka madaxweynaha ayaa kala shaqaynaysay inuu la fududeeyo arrintan. Waa ay diyaar garowday, waxa ayna gacanta ku soo qabsatay baskooladii ugu jirtay jaakadda hoosteeda ee qarsooneyd. Maskaxdeedu waxa ay ahayd mid isweydiinaysa su'aalo kala duwan, balse marnaba qorshaheeda kuma aysan jirin in ay ka joogsato falka yaabka leh ee qaarijinta. Qolka kontaroolka, Xamidu waxa uu ahaa mid weli walaacsan, isla markaana shaqadiisa wata, isaga oo xiriiro kala duwan ka helaya qaybo ka mid ah kaaliyayaasha kaamirooyinka ee ka shaqeeya madaxtooyada. Isaga oo eegaya shaashadda, dareen naxdin lehna qaba, ayuu qabsaday gacanka. Waxa uuna isku dayay inuu xiriir la sameeyo kooxaha amniga, balse uma aysan suurtagelin. Mar kale ayuu isku dayay, balse weli ma uusan helin wax warbixin ah. Waxa uu eegayay kaamirada, waxa uuna istaagay isaga oo naxsan. Waxa uuna isweydiinayay su'aalo ay ka mid yihiin, halkaas ayay joogtaa naagta kaligeed lugeynaysa meel u dhow qolka madaxweynaha. Ma jirto cid la socoto, mana jirto cid oggolaansho siisay, iyada oo warbixin aan laga hayn. Waxa uuna ku orday dhanka badhanka digniinta, laakiin waxa uu ka labalabeeyay inuu badhankaasi taabto maadaama uusan hubin arrinkan. Giyaarta waxa ay taagneyd xafiiska madaxweynaha hortiisa, farteedu waxa ay saarnayd keybka bastooladda. Gudaha waxa ay ka maqlaysay socod qof lugeynaya, kuna hadlaya taleefan si degan. Ma aysan libiqsanaynin, waxa ayna diyaar u ahayd bartilmaameedkeeda. Waxa ay taabatay badhankii yaraa ee qalabkeeda, waxaana loo sheegay calaamad muujinaysa in 1 daqiiqo gudaheed qof gudaha ku jira uu furi doono albaabka gaarka ah ee qolka madaxweynaha. Waxa ay maqashay shanqar qof ku soo soconaya. Waa ay naxday, waxa ayna u degtay dabaqa hoose si ay u hubiso waxyaabaha ku soo aadan iyo in lagu baraarugay arrinkeeda. Waa ay istaagtay iyada oo naxsan, waxa ayna eegtay kaamiradii geeska weli waa ay dinsan tahay. Waa hagaag, laakiin ma aysan ogeyn in Xamidu uu hadda daaray nidaamka digniinta iyo xaaladaha degdega ah ee kaamirada. Hadda waxa uu ka daawanayaa kaamirad qarsoon oo ku taala meel ka sarreysa albaabka laga baxo. Wax walbana waa uu arkayay. Xamidu waxa uu qabsaday telefoonkiisa, waxa uuna wacay madaxii amniga ee xafiiska madaxweynaha. Wax jawaab ahna kama uusan helin. Mar kale ayuu isku dayay, welina kama uusan helin wax jawaab ah. Daqiiqado kadib, Xamidu waxaa laga soo wacay lambar gaar ah, waxaana lagu wargeliyay in hawsha ka socoto albaabka madaxweynaha. Si gaar ah ay ula socdaan qaar ka mid ah ilaalada, waxa ayna sheegeen inay ku howlan yihiin sida ay uga howlgeli lahaayeen. Xamidu waxa uu markaan helay jawaabo maadaama uu daaray qalabka digniinta, waxaana ku baraarugay qaar ka mid ah ilaalada madaxweynaha. Waxa ayna gacanta ku dhageen dilaaga oo taagnaa albaabka laga galo qolka madaxweynaha, taas oo ugu dambeyn lagu fashiliyay dhagarta Giyaarta oo ahayd kalkaalisadii loo adeegsan lahaa dilka madaxweyne Traore. Markii la baaray kiiskeeda isla markaana laga weydiiyay su'aalo dheeraad ah, waxaana lagu ogaaday inay ka dambeeyeen qorshahan qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka. Daawade, haddii aad halkan nala soo gaartay channelka, subscribe dheh, isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran. Waxaynu halkan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.